boqorada iyo hadley runtii ilaa haddana meydkoogina aan hayn oo naxdin labaad ah waxa weeye dadka maaragtay ay ka geeriyoodaan samir iimaan aan ka gaarsiinayna ka bacdina wixii gurmada ee aanu u baahno markaanu goobta tagnana waanu soo dalban doonaa haddii la haydhaa inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun laba qof ayaa ku geeriyooday deegaanka bus ee waqooyiga gobolka Gabiley kadib markii ceel ay dahab ku qodeen uu ku dumay waxaana ilaa hadda lagu jiraa baadigoobka iyo sidoo kale badbaadinta meydadka labadaasi marxuun ee ku geeriyooday godka ay ceelka ka qodeen ee deegaanka bus xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka oo hadda halkan ka anbabaxaya ayaa fariin u diray bulshada reer Somaliland isla markaasina tacsi tirayna u diray ehelada qaraabada iyo qoyska ka bixin labadaasi marxuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun walaalaad wad mahadsan tahay war dheelale ayaa runtii naga soo gaaray deegaanada waqooyiga gobolka Gabiley meel u dhaxaysa deegaanada bus boqorada iyo hadley goobo laga qoday inta u dambeysay macdanaha kala duwan ee dahabka ayaa waxa lagu soo wariyay runtii in god ay qodanayeen dad muwaadiniina oo reer Gabiley inuu ku dumay ilaa haddana godkii ay ku jiraan godkoo dherarkiisu aad u dheeraa aan suurto gelin in laga soo saaro runtii warbixin sidii hawsha aan uga hawlgalno gurmadna aan uga geysano intii taalkaya ah meeshana aan u aragno u tagno dhacdada iyo sida wax u jiraana u soo xaqiijino halkan anaga ku taagan xildhibaanadii golaha deegaanka qayb ka mid ah waxaanu hadda ka baxnaa magaalada Gabiley waxaanu u sii jeednaa goobta hawshu ka dhacday sidaanu warar dheeraada iyo xog rasmi uga doonaa hadii la ka wayna ilaa raajicuun runtii shilka maanta dhacay waa shil naxdinteeda leh oo ka dhacay deegaanka bus laba muwaadin oo reer Gabiley ah oo runtii muruqmaal ah oo shaqaysanayay runtii uu ku dudumay god dahaba ilaa haatana aan wali la gaadhin runtii dadka deegaanka ka dhow oo u gurmaday waxa runtii anaguna nahay xildhibaan ahaan inaan u gurmano bal sidii aan xogta dhabta ah iyo xaaladda wixii kolba laga qaban karo halkaan u gurmano waxaan samir iimaan runtii aan halka taxsuuga dareynaa samir iimaan leenahay ehelkii ay runtaasi ka baxeen runtii ilaa haddana meydkoogina aan hayn oo naxdin labaad ah waxaan leenahay dadka wixii hadda ka dambeeya bal aanu warkan la soo wadaagno kolba xaaladdu say ka soo kordho wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna raajicuun waxa goordhaweyd ilaa maqribkii la soo sheegay waxa weeye xubno deegaan ka mid ah oo laba qof waxa weeye oo dahab ka qodanayay deegaanka bus inay godkii ku dhaceen halkiina maartay ku geeriyoodeen laakiin ilaa imika la faadayo soo saaristii la soo saari lahaa marka insha Allah gura deegaan ahaan waxaan u baxanaa deegaankaas u baxanaa san xoogaal iyo gurmasho u noqono insha Allah taala waxaan bulshada ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu meedka iyo maartay ashqaasta laga ku geeriyootay ilaahay soo saaro waxa weeye dadka maartay ay ka geeriyoodaan samir iimaan aan ka gaarsiinayna wixii xoogaal iyo wixii warbixin ah oo idin soo wadaag doona insha Allah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan maanta la soo sheegay fiidkii in deegaanka la yiraahdo gari go'aanka iyo meesha la yiraahdo bus dhexdooda god dahab laga qodayay inay halkaas ku geeriyoodeen laba ruux oo godkaas ku dumay imkana la faqayo ilaa saacadan soo joognana aan meydkii wali la soo saarin anaguna golo deegaan ahaan waxaanu gurmad doonaa imka halkaas aanu tagi doonaa imka u baxaynaa waxaanu soo eegi doonaa bal xaaladda ay ku sugan tahay meeshaasi iyo sida looga soo saarayo iyo haddaan gacan lagaga soo saarayno loo baahan yahay cagafyo faqa godkaas oo dadka ka soo saara si oo ciidda kala yareeya sidii halkaasi loo geyn lahaa in dariiqa ay u suurtagelayso in cagaftaas ay marto iyo inaanay marin hawshaasaan doonaynaa inaan galno imika ka bacdina wixii gurmada ee aanu u baahno markaanu goobta tagnana waanu soo dalban doonaa haddii la haydhaa waana noo iman doonaan wixii halkaa wax ka qabanaya ilaa halkaa laga soo saarana hawshaasi waan wadi doonaa waxaana ilaahay ka rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan leh looga soo saaro labadaa ruux ee ku dumay meydkooga si dadkii ehelkooda ahaana ay ugu samraan dhibaatadaasina looga baxo waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo qoyskoodii iyo qaraabadii iyo ciddii ay ka geeriyoodeen sida labadaa ruux wixii warar ah ee ka soo kordhay dhacdadaasi waxaad kala socon doontaan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu qayb ka noqon doonaa wafdiga ballaaran ee raaci doona xildhibaanada u baxaya deegaanka bus xaaladda iyo sidoo kale wixii gurmada looga baahan yahay goobtaasi waa la xaajiyay telefishinka qaranka